ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa soo gaaraya fariimahan jabaad ah oo uga imaanaya dhinacyo taageersan qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya xildhibaanadan oo qaar ka mid ah aanu magacyadooda helnay ayaa waxa la sheegay in loogu hanjabay in naftooda la dhaafin doono haddii ay codkooda siin waayaan musharax si gaar ah loo wato Ahmed Macalin Fiqi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya lagana soo doorto dowlad goboleedka Galmudug ayaa si shaac ah u sheegay in xildhibaano ka tirsan labada gole ay u timid hanjabaad toos ah oo ka imaanaysa dowladda Itoobiya Ahmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in wakiilka dowladda Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya General Gabre uu yahay ninka sida tooska ah ugu hanjabaya xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi waxa uu hoosta ka xariiqay in marnaba baarlamaanka tobanaad aanu u dulqaadan doonin goodis agajugleyn iyo falal kale oo kaga yimaada General Gabre Ahmed Macalin Fiqi oo hore uga soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray ambassador sidoo kalena soo noqday taliye ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa uu sheegay in ay dhagaha Soomaalida laga soo bilaabo 2006 ilaa iyo hadda ay ka badbateen magaca General Gabre loona baahan yahay xildhibaanada qaranka ay cadeeyaan waxa uu yahay General Gabre marka ay dhacayso doorashada 8 bishan February loo balansan yahay oo ay ku shubaan sanduuqa cod isbedel muujinaya warsidaha garsoor online oo la xiriiray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa uu helay tirayo oo ka mid ah qiyaasta 30 xildhibaan oo la aaminsan yahay in fariimahan jabaada ay ka soo gaareen General Gabre magacyada xubnaha ilaa iyo hadda la ogaaday in fariimahan jabaada ay soo gaareen ayaa waxa ka mid ah xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo baarlamaanka ka soo gala maamulka Hirshabelle Goodax Barre waxa uu ku caanbaxay mucaaradida waxa uu ku caanbaxay in uu yahay nin ka soo horjeeda madaxweynaha hadda jooga xildhibaan Ahmed Macalin Fiqi oo ka yimaada baarlamaanka Galmudug ayaa ka mid ah baa la leeyahay dadka loo hanjabay Fawzi Yusuf Xaaji Aadan oo mar soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen ayaa waxa la sheegayaa inay ku jirto liiska xildhibaanada ay soo gaartay fariinta hanjabaada ah ee ka timid General Gabre oo ah wakiilka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Cumar oo loo yaqaan Caanunug oo ka soo gala baarlamaanka dalka Jubbaland ayaa isna ka mid ah dadka loo hanjabay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo koonfur galbeed ka soo gala baarlamaanka Soomaaliya wararku sheegayaan in uu gaaray nuqul ka mid ah fariimaha hanjabaada ah ee uu dirayo General Gabre Senator Cabdirasaaq Xasan Cilmi Jurile oo Puntland ka soo gala baarlamaanka aqalka sare ayaa isna la sheegay in loo hanjabay xildhibaan Cilmi Cumar Aynsane xildhibaan Xuseen Arab Ciise oo Somaliland baarlamaanka ka soo gala xildhibaan Sagal Isaaq Biixi oo Jubbaland baarlamaanka ka soo gashay iyo xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo Hirshabelle ayaa sidoo kale ku jira magacyada xildhibaanada loo hanjabay sidoo kale xildhibaan Cabdixakiin Macalin Ahmed oo Galmudug ka soo galay baarlamaanka hadda jira iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulusho oo isna Hirshabelle ka yimid ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka lagu hanjabayo in codkooda ay siiyaan musharax gaar ah oo ay wadato dowladda Itoobiya Soomaaliya ayaa gelaysa marxalad adag waxaana Soomaaliya hadda hor yaalla dooq ku aadan in isbedel ay raacdo iyo in ay ku adkaysato hoggaanka hadda talada haya oo la sheegayo in dowladaha dariska ah iyo kuwa shisheeye intooda badan ay ku qanacsan yihiin taageerana ay siinayaan